Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalkeena. Maanta mowduucan ka hadlayna waxa waaye suuqii cryptocurrency-ga oo hoos u dhac aad iyo aad u weyn uu ku dhacay 24 saac ee u dambeeyay. Maanta ay taariikhda ay tahay 5tii bishii 8aad 2024 wuxuu ahaa oo ku beegan maalin Isniin ah. Waxay u tahay cryptocurrency maalin wada dhiig ah ayay u tahay. Hoos u dhac weyn ayaa ku dhacay Bitcoin-ka oo gaaraya boqolkiiba 11 gaarayo ayaa ku dhacay. Sidaan arkayna Bitcoin-ku wuxuu kasoo tagay 24 saac u dambeeyay wuxuu joogay all time high-giisa wuxuu joogay 61,000 haddana wuxuu gaaray 52,300 haddana 54,000 iyo meelahaas ayuu ku trade gareynayaa. Sidaad arkaysaan lacagaha kaleento ee loo yaqaano alternative-ka ama lacagaha kale beddelka ah sida lacagaha meme coins-ka ah. Saa arkaysaan lacagaha meme coins-ka sida Shiba, Floki, Baby, Bonki qaarkood ayaa boqolkiiba 25 minus ku jiro. Haddaba muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sababta keentay inuu cryptocurrency-ga suuqan uu xaaladan uu ku sugan yahay. Sababtan wax kaleenta maaha suuqan saa og tahay waxyaabo badan baa saameeyo oo ay kow ka yihiin arrimaha ka dhaco dunida dagaalada waxyaabahaas oo dhan aad bay u saameysaa. Sidaad ogtihiinba maalin dhexdaas waxaa la dilay dhowr maalmood ka hor waxaa la dilay Ismaaciil Haniya ayaa la dilay. Kadibna TS waxay keentay waxaana lagu dhex dilay dalka Iiraan caasimadda Dahraan. Waxaana la aaminsan yahay inay hawshaas fulisay Israa'iil Yuhuudda. Sidaas darteeda Iiraan waxaa laga filan karaa in ay sameyso jawaab degdeg ah. Jawaabta ayaa waxaa la fili karaa la leeyahay inay dhacdo maalinimada Isniinta ah oo ku beegan maanta. Saas ayaana keentay inuu suuq hoos u dhaco. Qof walba wuxuu kala baxayaa lacagaha wuxuu rabaa inuu position fiican uu kasoo galo. Sideedana cryptocurrency-ga haddii Bitcoin-ka hoos u dhaco wuxuu leeyahay hal dabeecad oo ah in suuqoo dhan uu hoos u wada dhaco. Hadduu Bitcoin-ka situation fiican uu ku jiro lacagaha cryptocurrency-ga oo dhan situation fiican ayay gelayaan. Haddii laakiin Bitcoin-ka uu hoos u dhaco lacagahoo dhan hoos ayay u wada dhacayaan. Marka waxa waaye waa hormuudka cryptocurrency-ga Bitcoin ayaa ah haddii aad tahay xataa qof maal gashaday iyo haddaa ahaynba labadaba waa uu ku saameynayaa. Marka saas darteeda haddaba maxaan kula talinayaa asxaabta janaalkan igula jirto iyo kuwa kale kusoo biiri doonaba oo muuqaalkan daawanaya iyo kuwa ka mid ah oo suuqan cryptocurrency ku jiro. Haddii aad suuqan horay u maalgashatay oo ay lacag kugu jiraan waxaan ku dhihi lahaa waxba ha welwelin suuqan iskaga jir. Haddii laakiin aad tahay qof hadda raba inuu maal gashado waxaan ku leeyahay waxaad joogtaa waqtigii ugu fiicnaa in aad maal gashato suuqa cryptocurrency-ga. Maxaa yeelay fursad noocan oo kaleente inaad aragto oo maaragtay minus ilaa heerkan gaarayo inaad aragto boqolkiiba 11 minus gaarayo waxa waaye waa fursad aad iyo aad u yar waayo run ahaantii. Inta badanna wax dhaca ma aha. Maxaa yeelay markuu Bitcoin-ku isku sameynayo tasxiix hadduu u bato boqolkiiba 5 ama 6 ayuu tasxiix isku sameeyaa. Laakiin inuu heerkan gaaro waxay fursad u tahay dadka aan hadda suuqa ku jireen. Marka waxaan ku dhihi lahaa it is the perfect time in aad maal gashato cryptocurrency-ga adigoona wax cabsi ah dareemin. Maxaa yeelay this will not longer waxaan wax sii soconaya ma aha. Yacni ha u malaynin macnaha inuu Bitcoin-ku minus iska ahaanayo no waa isbedelayaa. Kolley haddaad suuqan cryptocurrency-ga aad in muddo ku jirtayna waad ii garaabaysaa waa saxan tahay. Marka waxa waaye suuqa mar walba oo uu yahay red waxa waaye maalmo kale waxaa ka dambeyn doono uu yahay green oo asaga dhan wada cagaar uu qurux badan yahay oo suuqa uu kor u wada baxayo. Marka maalmahaas ayaa maaragtay waxaa dadka ay uga faa'iideystaan waxa waayo dadka qaarkood ayagooba maaragtay trade-ka iyo waxyaabahaas aan ku mashquulin dad waxaa jira kaliya markuu red yahay iibsado markii uu suuqa uu green noqdo uu percentage fiican fulana iska iibiyo. Sidaas dad ku trade gareeya ayaa jiro iyo dad news-ka iyo waxyaabahaas waxay. Marka perfect time waaye ayaan isleeyahay in la maal gashto suuqa cryptocurrency-ga. Marka waxaan idinkula talinayaa insha Allah in haddii aad maaragtay suuqa crypto aad rabtiin maal gashtaan is perfect time inay tahay. Muuqaalkan insha Allah intaan ayuu ku egyahay haddii aad janaalka ka mid ahayn subscribe noo saar sidoo kale inta muuqaalkan like noo saar
si dad badan uu u gaaro. Aad iyo aad aa u mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.